بسم الله الله أكبر. سلام جود بان إسلامي ومدة مسلمين تا علماء reer Hargeysa iyo guddida waxay odayaasha maanta hadlee garxaj isku magacaabay baan ayaan in yar marka hore nimanka culimada sheegtay ee Hargeysa ka hadlayay waxay hadalka ku fureen ay ka horreysiyeen shaqaaqada ka dhacday Laascaanood bay dhahdeen eray bixinta shaqaaqo waa meel dhalinyaro isku yara laysay ama mudaharaad yari ka dhacay oo la shiiday baa shaqaaqay yar la yidhaahdo shaqaaqo eray bixinta maanta ay u bixiyeen oo keliya ayaan ku xukumayaa wixii ay ka hadleen taasaa isku fuuqsanaysa inta kaloo dhan ciidanka hal la kala xabad joojin labada dhinacba ha sameeyeen waxaan oo dhan waxa isku fuuqsanaysa maanta oo qofkii caqli ama Soomaali yaqaan intaas waxa weelista raggii aan hore u dhageystay oo Sheekh Hebel Dheere la yiraahdo oo xagga dambe aad moodaysay inuu gaar ka ahaa ilaalinayay iyo wuxuu ku hadlay iyo wuxuu yahay baan aqaanaa dawladdu ka tirsan yahay waxaan u arkaa culimadaas inay ama baqadini ku kaliftay ama loo soo laqimay oo interest ku jiro ama qabyaaladii qaaday oo ay ilaaween kitaabkii iyo cadaaladii iyo wixii Ilaahay sheegay intaas baan u arkaa inay mid uun tahay anuu midnaba ma odhanayo laakiin saddex arrimood baan ku qiimeeyay raggii culimada sheegtay hadlay waxaan ku sababaynayaa 1988 ayaa Hargeysa jabaadi soo gashay ciidamadii waxay ku garaaceen magaaladii ay jabaad soo gashay shicib diyaarad baa loo adeegsaday dawlad bay maamul bay waxa garaacay yani adduunka waa markii ugu horeysay aynu maqlo yani bilaadan caqligu u fayow yahay oo yiraahda maanta Laascaanood nin 30 sanadood maamul sheeganayo iyagana u sheeganayay ayaa hoobiye iyo madaafiic ku garaacaya dhakhtaradii iyo iskuuladii iyo masaajidadii caruurta iyo dhalinyarada kacday ee xabadda qaadatay ayaa maanta la leeyahay xabad joojin kala sameeya ciidanka 300 oo mayl ka duulay ee ku garaacaya madaafiicda iyo waxa leeyahay xabad joojin labada garab joojiyaan shicib Burco lagu garaacaya maaha shicib Hargeysa lagu garaacaya maaha simply intaasuu baan uga socday wadaadada maanta hadlaya iyo kuwii la midka haday joogeen maalinta waa shahiid bay lahayn waa shahiid waayo bay lahaayeen magaaladeennii baa lagu soo duulay oo nin dawlad sheeganay waa dawladii Soomaaliyeed waan ku wada jiray xitaa marka waan ku wada jirriba ayaa garaacaysa marka waa shahiid mar hadii gurigaaga lagu yimaado caruurtaada la duqay ayay lahaayeen laakiin SNM xagga kale waxay ka lahayd waxay raali ka ahayd dadka in la duqeeyo ninkii nabadgelyo sameeya maxay tahay nabadgelyo ku soo dabaala dadka jeelasha ka sii daayay waa la dilay nabad sugiddu ahaa diiriye iyo demiya ay u bixiyeen ninka dadka u shida si loogu yimaado horena waan uga hadlay kilibay googooyeen ayaan hore ugu sheegay in SNM doonaysay in la duqeeyo dadka si ay dadku u kacaan ayaa bolosigeeda ka mid ahayd maanta wadaadada intaasan kaga gudbaya iyaga waxaan hal arkayay niman yidhi 40 nin baanu nahay oo magaca garxajis ku hadlayay iyana wadadii bay mareen waan sida UMT yihiin waan idin kala dhex fadhiisan waxa weeyaan dhulbahanta waan idin la hadlaynaa idinka geeyay ciidanka kelmadaha ka soo qaadanayo kaliya idinka markii hore bada ciidanka geeyay waa waan kala dhex fadhiisanaynaa kiina khaldan baanu sheegi doonaa ee khaldan ciidankana kala qaada saddexda qodob baan u soo noqonayaa anugu uma haysto nin garxaj soo halkan ka xora oo halkan ka xori inuu maanta kelmadda oran karo uma haysto laakiin ina sulub dad uu soo shiidaaliyo iyo dad baqdinta ku dhashay iyo xiniya la'aanta iyo ku dhac la'aanta ku dhashay inay ahaayeen baan iyagana saddexdaas baan ku tilmaami karaa waxa cadayna ninka maanta garxajis ee kelmadda ku hadlaya anigu uma haysto inuu garxajis sax yahay oo xalaal inuu yahay uma haysto laakiin waxaan u haystaa ku shuba shaqaladii lagu shuban jiray Qaasim garxajis oo salaamaya mujaahid baatay ku shub lagu shubtayaashii
ama qoladii maxay tahay la shiidaalsan jiray baan u arkaa waxaana leeyahay war ka daaya magaca garxajis anoo kalaa ku hadli karaa anoo kale oo ku dhacla baa ku hadli karaa anoo kale oo xaqa iyo cadaaladda sheegi karaa ku hadli karaa aniga oo kale oo dadku u sameeyay baa ku hadli karaa anuu oo kale haddaa maqashaan nin waa boqor raabi waa aniga waa dhalinyarada kale ee hadlaysa ee allahumma salli ala liibaan alcadaala ka mid ka yahay ciidda iyo camaarka ka badan ee wariyayaasha ee maxay hayto ninka la yidhaahdo uu teera ka mid ka yahay bakayle ka mid ka yahay so name it boqor raabi boqor buurmada waan ku daraya iyo suldaan ninka la yidhahdo suldaan dubad dadka noocaasa ciday doonaan baa ka soo jeedaan ee xalaasha ahun baa ku hadli kara magaca reerka waay reerku sharaf buu leeyahay diin buu leeyahay iimaan buu leeyahay caqli buu leeyahay xumaanta iyo wanaagga ay ku kala gartaan cadaaladda iyo cadaalad darrada ku kala gartaan dulmiga iyo dulmi la'aanta ku kala gartaan taa weeye qofka reer mateli kara maanta carruurta iyo dumarka madaafiicda jabuuti laga soo qaatay iyo hoobiyayaasha lagu garaacayo iyo ragga carruurtoodii kacday ee boqolka hore looga dilay ee ka kacay ee xabadda madaxa lagala dhacayo ee weli lala dul taagay nin kale xabadda joojiyo ilaahay u noqo haddaad inuun diin ku dhalatay oo xalaal ku dhalatay oo nasabnimo ku dhalatay oo xalaal lagugu dhalay ninka sidaa yidhi oo ka noqo aboolajaas iyo raalligelina bixi dadkaa lagu xasuuqayo halkaana waxaan leeyahay maaha kuwaasi garxajis haddii garxajis uu reer yahay waa aniga iyo inta ila midka ah guddi buu garxajis leeyo boqor raabi baa noo afhayeen wuu hadlay la shiidaaliyayaasha xiniyaha laga saaray dhufaanada ah garxajis ma matalaan ninku dhaclaba garxajis matali kara kaasaa waxna gala waxna guda ragna iska celin kara cadaaladna ka hadli kara iyagana waxaan kaga baxayaa intaasaan kaga baxayaa waxa la yaab leh oo aynaan hore u arag maanta ummaddii reer waqooyi ninkii hadlaabo wuxuu odhanayaa garaadada waxaanu leenahay nabad qaata ma garaadka gurigiisii sulubka laga soo guraya daaqadaha laga toogtay lala dul taagan yahay nabadda aad ka doonaysaa u qaataa waatee waar ilaahayna ka yaaba oo xabadda naga daaya buu taagan yahay waar naga baxoo naga noqdo xabadda naga daaya ay ninka taagan ee aad leeday nabadda qaado waa maxay caqligani war sharaftii iyo dadnimadii reer waqooyi nalagu odhan jiray ee nalagu ixtiraami jiray hadalkii caddaaya nala odhan jireen dhaqanka u lahayn garyaqaanimadii dhexdhexaadnimadii cadaaladii nalagu yaqaanay runkasheegii garta ee nalagu yaqaanay ma muusa intuu musqul la galay dhoobo kula gelgelimaysay iyo musqul kula gelgelimaysay dadkii miyaan waxba ka hadhin miyaan dadkii waxba ka hadhin ninka maanta aad ku leedahay maanta siduu u yidhi nin fariidoo daawan jiray oo maanta tubta qabsaday xagga kale shalay ahaa oo la yidhaahdo shabeel garyaqaan shabeel oo maanta wax badan oo aaminsanaa ragga ka midka ah ee ka hadlayuu ka mid yahay yacni maanta waxa dagaalamaya muuse biixi iyo maamulkii lagu wareejiyey 30 sano jiray iyo jabuuti iyo reer dhulbahanta ah oo la siman arab la siman talaaya isaaqay talaay aabihii fulinimada iyo nasabnimada xumadaba ka wasa waa reerka u qayshanayaan ee u barooranayaan dumarkoodii dibadda ugu soo saarayaan ee leeyihiin talaaye waa jilib la siman arab jilib ka mida buu la sameeyey waadna ceebaysaan shalayna waxaan idinka maqlayay dowladdii siyaad barraanu jebinay tiiqa ugu xoogga weynayd baanu jebinay innagaa jebinay siyaad barre yes jabhadda waa la dagaalantay yes waynu soo gallay dhiirkii waa laynaga saaray dabaddaynu joognay hallina nagama joogin magaalooyinka 1990 idhiidh baa laynaga saaray ma
maalintii cabdiraxmaan tuur uu shiidaaliyey hawiye ee caydiid hubka u dhiibay ee xamar la galay ayay kuu hiiliyeen haddaad hiil doonayso oo xamar laga saaro siyaad bare hargeysa lagama saarin siyaad bare dabeetana nimankii maxaa haytay salbarlaan maahee la odhan jiray magaca lahaa ayay yidhaahdeen in carto waxaa tirahdaa hubka ku wareejiya jabhadda dabeetana 90 iyadoo hubkii laynagu wareejiyay baynu soo gallay ya salaam ya salaam shalay kalshaale waan ogaa haddiise ay jireenba qaar siyaad bare la dagaalamayay waa kuwan maanta kula hadlaya dee waa kuwan haddii ay deegaama tahay kuwa siyaad bare xitaa la dagaalamayba waa kuwan laakiin kuwii laxooxda dubayey ee kimista u soo dubi jiray ayay maanta jooga waa kuwa saraakiishooda casarka galay carruurta ku heesayso yaryar ee iskuullada ka timi ha ka xumaanina waan ogahay in runtu dadka ay gubto waan ogay qoladiina heego la yidhaahdo ee jeegaanta markii hore la isku odhan jiray mala abtiyaashay kaba baxay markay wax badan ogaadeen markii hore aqoon la'aan ba isugu dhinayde ilmaarhayaalo wax aan qarsoonayn ma qarin karayo laakiin waxa leeyahay wax ku dhac la yiraahdo sidii dhaqanku u ahaan jiray reer waqooyi uun baan anigu leeyahay wax kale ma soo kordhin qabyaalad waxa igu yiraahdaan intaasan kaga baxay waxa igu yiraahdaan niyaho de waxa weeyaan inagu gaar ahaan aynu hoos u wada hadallo aynu hoos ugu sheegno wixii khalada ee nin kale leeyahay waa ilmaadaridii ba goray nin kale khaladaad badan waan ku aragnaa oo xumaata waan ku aragnaa laakiin inagu de hoos ahaan inaad dadka ina ogeysiiso maaha oo aad sare u qayliso oo aad sare deniyo aad magaraas u sheegto waxa ku yidhi reer berigan cuqaasha ahayn ee aynan dowladba jirin dowlad ba lahayn ilaa cismaaniinta horteed ee salaadiintu ina xukumi jirtay yaa cuqaashii salaadiintu meel isu diri jiro geed hoosteed isugu tegi jiray laakiin calan baa taagatay waxtay somaliland yaa dega ee aad u sheegatay calanka yaa ka qarinana wax gabooyaa dega intay dhegaystana waa intaa hawiyaa dego inala leh daarood baa dego inala leh oo ku jira samaroon baa inala leho ku jira ciisa inala leho ku jira absama inala leho ku jira qaar badani bal soomaali gebigeediiba waa kan cidda aan wax ka qarinaya kala dhuunto ee idhaahdo qoladeennii isaaq waa khaldanahayo maxaynu samaynaa ee dhibriiqa ugu addima waayo talabaad waxaan kaga baxayaa shalay waxaa qarsateen idinku horta ma jirtaa aan garnaqsanne waayo qaar badan baa igu soo cawday oo yidhi xasanoo waad naga khaldan tahay loog idinku waxaa qarsataan waxaan idinku sheegay ma jiraa idaacaddiina la yidhaahdo qaranka ee oo riyaale idinkaga tegay ee ceesiilaayo ee hebel ee ay haysataan in la yidhaaha qaranka ayaa reer garxajis la yidhaaha laga caayaa wasiiradiina iyo madaxweynihiina garxajis caaya iyo dumarkooda colaad caddaana u qirtay idinkoo weliba maamulkii laydinku wareejiyey maanta jooga ayaa reer ka caydaan oo reer maxaa haytay ka aflagaadaysaan oo ay maxaa haytay aad ka caydaan hablahooda iyo raggoodaba aydan kala reebin maxaan idin qariyaa idinkaas caruurtooda madaxa ka toogataan iyagoo le walaal doorasho noo qabta doorasho walaal oo uu horkacaya bahalkii ninkii maxaa haytay magacaa u bixisaan walaal doorasho noo qabta muusoo noo soo fadhisaa madaxa rasaas kala dhacdaan idinkoo qabiila oo reer weliba gaara tooganaya war ma idinkaa isku qayliyo dabadiisa soo dhigay oo iswadhay mise aniga oo reer burcaan layguma talagelin mayna wax qariyo sidaa iiga caban kartaan waar ma waxbaa qarsateen 1990 baa kaga bilowdeen talaay cadaawad cadowgeennu waa garxajis waar ayaa kaga bilowdeen harti iyo samaroonna waa ku xigaan waa cadowga labaad yuhuudda oo kale ayaad wari haysta maanaa idin idhi sidan sameeya maanaa idin 30 sannadood dagaal iyo cay iyo qabyaalad iyo xaqdarre iyo cuqubo iyo eex iyo isutag iyo utashi dad meel kula degan maanaa idin idhi sameeya haddaanay kuwa garxajis ku dhicin oo aanay ku dhici karin inay yidhaahdaan warnigo annagu reer burcaan nahay oo ma naqaano waxaa idinku dabadda keentaan ayuunbaan annaguna idiin sheegnaa oo idiin soo celinaynaa oo idiin sheegaynaa inaanu ognahay war ma idinkaa isku qayliyo dabadiisa soo dhigay oo iswadhay mise aniga oo reer burcaan layguma talagelin mayna wax qariyo sidaa iiga caban kartaan waar ma waxbaa qarsateen 1990 baa kaga bilowdeen
tallaay cadowgeennu waa garxaajis waar ayaa kaga bilowdeen harti iyo samaroonna waa ku xigaan waa cadowga labaad yuhuudda oo kale ayaad wari haysta maanaa idin idhi sidan sameeya maanaa idin 30 sannadood dagaal iyo cay iyo qabyaalad iyo xaqdarre iyo cuqubo iyo eex iyo isutag iyo utashi dad meel kula degan maanaa idin idhi sameeya haddaanay kuwa garxaajis ku dhicin oo aanay ku dhici karin inay yidhaahdaan warnigo annagu reer burcaan nahay oo ma naqaano waxaa idinku dabadda keentaan ayuunbaan annaguna idiin sheegnaa oo idiinku soo celinaynaa oo idiin sheegaynaa inaanu ognahay dumadduna og tahay waxaan kaga baxayaa ninka dambe waxaan arkayay boqoladii carabi awowayaasha oo ahayd qaar ka mida reer waaweyn oo laha la duqeeyo waxaan ilaahay baa iga hadlinaya ilaahay wuxuu igaga hadlinayaana waa waxa xaqa ayaan arko ayuu tusaya dadna xaqa ilaahay baa tusa dadna indhuhu ka daboolaa aakhiru tusaa dabeetana aniga ifkaa laygu tusay xaqa iyo cadaaladdu waxay tahay dulmiga iyo dulmi la'aantu waxay tahay ayaa aniga ifka laygu tusay laakiin qaar badan baa aakhire lagu tusi doonaa waan filaya oo ifka arkaynin waxaan idin leeyahay dhulbahante shalay inaad ku tidhaahdo ilaa garaadkoodii guud iyo garaadadoodii adoo soo dhaweeyo yidhi anaaba soo geliyo calanka soomaaliyeed oo ogolaaday inaad tidhaahdo adduunka intaad u qorto warqado waa alqaaciida international terrorist inaad tidhaahdo bal xitaa kuwa intaa ka qaban kari waaye odhan kari waar saaq furanlayso maalintaasaad u badheedhay inaydan dib isu dabaysan waxa ka dambeeya aad ka hadlaysaan haddii ilaahayba uu dee kan idiin miyir qabo wax dambe oo laga wada hadlayaa nin aad madax dhaqameedkeedii iyo madaxdeedii xukumayaba internationally kaga dacweysay waa terrorist maalintaasaad kala qaadateen iminkana wuxuun baan u malaynaya haddii caqli idinku jiro waa ciilbeerun waa aargoosi waa lafaheennii waa in lafo kale kusii darsano waan salaamay dadka soomaaliyeed u gudbiya wixii caqli la u gudbiyay intaas ma badinayo waxaana leeyahay ilaahay xaqa ha idin garansiiyo ummadda aan ka imi gobollada aan ka imiyo ilaahay xaqii shalay yacni bal dulmigaasi intuu isu jiro bal hadda eega waa lafaa la sitaa 30 sannadood lafahana waxay leeyihiin waana la duqeeyo dowlad baana duqaysay maantana caruur iyo dumar bay duqaynayaan bal hadda eega hadda daawada intay isu jirta bahashu bal daawada ilaahay baa ina daawanaya ilaahay baa ummaddan daawanaya laakiin ilaahay dulmiga qofka galaya kale haddii meelkooda nooyin lama kala reebo way ku wala dhacdaa arkii ilaahay baa soo saarayba waxaasaan leeyahay war diintiyo qabyaaladda kala saara war dadnimada iyo qabyaaladda iyo cudfiga kala saara war soomaalinimada baleg cuqubada haysa waxaa ka mid ah markab dhan oo caruur soomaaliyeed saaran tahay ayaa yaman 9 maalmood caruur aan biyo iyo oomata ka degin bay soo taagay berbera waa meelaha cuqubada kaga socotay ay u dumayso waxay dhahay yaman tahay soo dega walaalayaal soo dega yaman originally shahaashimi waan kasoo wada jeednaa waa la soo dega caruurtii soomaaliyeed ee boqolaalka ahaa waa lagu celiyey markabkii oo raashin u saarayn oo bahali u saarayn oo yaman ka soo qaxay waa kuwa arrimaha iyo yani bila aadanimada darradu waa tan halka ay cuqubadan kaga dhacaysaa waa tan wax kale maaha bila aadanimadii baa ka tagteen dadnimadii baa ka tagteen soomaalinimaa ka tagteen diin baa ka tagteen dhaqan baa ka tagteen ummad ka dhexeeya soomaaliyeed iyo bini aadan badkii ka dhexeeya baa ka tagteen waa tan way burburaysaa ninka maanta ku riyoonaya dhulbaantona xabadda joojiya muusona adguna xabadda yara jooji aynu wada hadle wala reer somaliland baa tihiin nin kale riyoonaya hargeysa ka hadlaya qayleyo ee cimaamada loo soo laabayo dhulbahante maalintaas sidaa tidhaahdeen buu tagay dhulbahante wuxuu tagay 30 sannadood markuu idinka baryayey war xaqiyagii iyo cadaaladayada halkan dhiga iyo waxaan xaq u leenaho nala hadla ayuu dhulbahante tagay
goormaa toostay aad leedahay dhulbahanto walaalaynu nahay isku walaal waynu isdhallay walaal waynu iscunnay walaal waynu waa goormaa 30 sannadood buu kaa barayaa war sida bini'aadanka ila hadal inaan qof bini'aadan oo jira oo dalkan iyo kula leh iyo dhulkana aan ahay qir oo soo hor fadhiiso oo aad diidanay waa goormaa too late it's too late maanta waa too late waxaana leeyahay dhulbahanta wuu tegey inta idiin hadhay iyo idinkaga dhiman inta idiin hadhay iyo idinkaga dhiman ee kala soo baxa dhulbahanta wuu ku daayay harti wuu ku daayay samaroon baa ku xiga waynu garanaynaa cuqubada iyo cadaaladdu intaa wax ka badan ma sii jirto waynu garanaynaa in reero loo kala googo'ayo qolada garxisna waxaa leeyahay waad raagteen waad ku raagtay idinka laftigiina 30 sannadood taaniga laftigeeda ku jira 30 sannadood bay mid ka daran idinku qaadatay 30 sano idinkuna tashada ciddaa raacaysan idinkuna way kala tagtay tani dhulbahante waxba dhulbahanta iyo wax maxaa dhulbahante war maxaa dhulbahante ragashaa adaa u gumaysan doqoniibo u gumaysane dhulbahante maxaad ka sheegay aad ula tegi هذا البانتا وتكريا أورانكرا وهذا وحشيسين كرا هرجيسا أياد عرشوله وعروت المدح اللي قلته هبلها غير الحرا وشيل خلقو قران الحل كرين عقاش هذا لقو قرا مدح هذا شيلش لقو قرا هبلها قال لقو قرا كوا شرفت له وأنا تشوف أورانكرين وهذا وين حد البانتا أوران أنا أقول هذا هاي ديجا ما بدن بدكته تنوي كلا تكتاي قيس بنقطي سومال لنا ميل قيس لغو قوديا بين نقطه كاغا قوديو ولتا كوا كله هداد قرنيمه iyo maamul doonaysaad u jeeshay ciray intaad ka haysato lascaanoodgiyo maamul kula samayso iyo boorame nin waliba tuuladiisii uu maanta xukumaya dabeedna Soomaali markaas inuu tagi karaa oo inuu maamul iyo dawlad noqon tani way ka tagtay maalintii in cigaal yimi bay ka tagtay qoys noqotay waliba isagu siyaasi weyn buu hayo wax yar kala gargaranay wax kala gargaranay walaw kursiga uu khiyaala kugu dabiyay maamul dadka ka dhaxeeya khiyaala kugu dabiyay idin kale inta sanad ilaa waxaan ku soo gaabinayaan kaga baxay ummadda Soomaaliyeed qofkii cadaalad iyo xaq garanaya kuwaas maanta uu hiilin kara ilaahay baa markaa ku hiilinaya qolada reer qoyol xalle war hadii sharaf iyo magac jiro iyo qof cadaalad ka hadla way igu faani lahaydeen ما يدان يقول صعب عبادين ويقام يدان عبادين ويما يدان صعب عيدين وما يتراد ويقول فان لذا حول الله هيدن كاسو كلا نقول شرا وقوي كذا شيء كاسو كلا أي أورا الله هيدن ويقول فان الله هيدن هل كان ما تلي تلا يساقو ما يساقو كلا يساق يدي يساق ما كنا نروح يساق وشرا حق بدي يردن بري 1920 ولا كلا يساق اسمه صوتي 90 ما بعضي انت كلا علوا بيد كره joogeen afar daaqood yaa un ba dhunteedin hayay dadkan oo iska fadhiyay meesha oo halkaas dadkuna meel ay qabtaan iyo muqdisho ma jireen oo xaggaasina way ololeysay meesha wuxuu baa walaan iska wada oolaanay idinkuna xaaraantina jaqa midda kale waxa leh qoladina garxajisiyo kuwa dadka la socdo ilaahi baa idinka digayba ina magac xumadan maanta iyo sharaf daradan aad dhex gashaan oo maanta xukuntaan oo waxaan oo kala soo gaadhaan inaad dibadda ka ahaataan mala ilaahi baa idin sidaa idinku وأنا السلام يدك سومالي أنتي ناسي واجبكين نوام حي قفكي عدالة واركو جارسي دتك سوماليات دتك أنو لقارة هي كدونة فيس ميهي وحميهي جارسية دتك الصوماليات وحي عدالة واركو وحامكو هذلو إيا جانا كوي عن لها لينا ربطة وصارة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شرف بالي دتك سومالي